daawadayaal ku soo dhawaada video cusub oo muhiimadiisa wata. Video waxaan kaga hadli doonaa cabitaanka ugu wanaagsan ee beerka, kiliyaha iyo mindhicirrada ka nadiifiya sunta. Sidaan ognahay, jirkeena waxaa ku jira sun taasoo sababaysa inay soo muuqdaan calaamadaha xasaasiyadda, daalka iyo finanka. Caadi ahaan, sunta waxaa laga saaraa beerka, kiliyaha, mindhicirrada iyadoo la cabayo cabitaano gaar ah. Halkan waxaan ku soo gudbin doonaa cabitaano gaar ah oo si heer sare ah sunta jirka uga saara. Waxaana ka kooban yahay karootada, koosada iyo liinta. Sababtoo ah waxay leeyihiin fiitamiino iyo macaadin jirka faa'iido leh. Haddaan ka hormarno karootada, waxaa ku jira phosphorus, calcium iyo vitamin A oo jirka u leh faa'iido aad muhiim u ah. Sidoo kale koosada waxay qani ku tahay birta, waxayna ka hortagtaa dhiig la'aanta iyo calaamadaha duqnimada ama gabowga. Waxay kaloo leedahay vitamin B6 iyo vitamin K kuwaasoo dhiigga nadiifiya. Sidoo kale liin dhanaantu aad ayay jirka u nadiifisaa sababtoo ah waxaa ku jira vitamin C. Liin dhanaantu waxay nadiifisaa kiliyaha, beerka iyo mindhicirrada, waxayna xoojisaa difaaca jirka iyo dheefshiidka, waxayna yaraysaa xanuunada murqaha iyo kala goosyada. Haddaba sideen isugu dareynaa cabitaankaas? Waxaan soo qaadanaynaa 2 xabo oo karooto ah, ugu yaraan 50 gram camal oo koosta ah. Waxaan kaloo soo qaadanaynaa 1 xabo oo liin ah. Kadibna waan isku shiidaynaa. Markaan cabitaankan shiidno, haddaba sidaan u isticmaalaynaa? Waxaan u isticmaalaynaa 1 koob ayaan ka isticmaalaynaa subaxii caloosha oo maran ama quraacda ka hor. Muddo asbuuc ah ayaan sidaas ku wadaysaa. Kadibna insha Allah waxaad arki doontaa natiijada ka soo bixi doonta hawshaas. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad sii gudbidana kaba qurux badan.